magaalada Kismaayo odayaal reer Kismaayo ah oo ku shiray magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka hadleen sida ay uga xun yihiin dagaaladii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Cabdi Caynte ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. shirkani jiraayad oo ay maanta qabteen odayaashii waxgaradka ay ka soo jeedeen siyaasiyiinta dhawaantan maamulka Jubbaland dirtu ku dhaxmartay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in bulshooda aysan arinkaas u dhameen ayna tahay sida ay yiraahdeen mid uu ka dambeeyay wasiirka gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi. sidoo kale odayaasha maanta shirka jiraayad qabtay ayaa waxa ay baaq u direen dhammaan bulshada reer Jubbaland ayagoona ugu baaqay in nabadda laga wada shaqeeyo isla ahaantaana gacmaha la isqabsado. haddaba qaar ka mid ah odayaashaasi shirka jiraayad ka hadlay ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa. magacaygu waa Saalax Aadan Xasan Suldaan Saalax baa la yiraahdaa. waxaan halkaan ugu tacsiyeynayaa anigoo ku hadlaya afka beesha Coomare iyo hadda ugaasku halka ka maqan dhamaan afkooda ku hadlaya dadkii lagu xasuuqay dagaalada ka dhacay magaalada Kismaayo. waxaan halka ka cadeynayaa in ay beesha Coomare wax shuqul ah ku leeyihiin dagaalada halka ka dhacay. waxaasna waxaa ka dambeeya dawladda federaalka ah iyo shakhsiyaad dana gaar ah. waxaan idin sheegayaa beesha in ay waxa ka banaan tahay wax shuqulan dagaaladaas shacabka lagu xasuuqay ay shuqul ku lahayn. dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogto waxa ka dhacay Kismaayo ummadii dhibaatada ku soo gaartay waxaan ugu tacsiineynaa. waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo midnimo. inta ka bacad waxaan saxaafaddu u sheegaynaa iyo ummadda Soomaaliyeed fiirsanaysan daawanayso dhibaatada Kismaayo ka dhacday waxa mas'uuliyadda iska leh wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid yahay ninka la yiraahdo Xoos Jibriil oo hogaaminayay. ka hore dhibaato kama ayna jirin Kismaayo waxaa la sameeyay oo muddo 8 bilood ku dhawaad socday waxaa socday shirar oo isku keen Mingedo ilaa iyo Raaskeenbooni oo halkaas ummadii ergoynka isku keenay qaad diyaarado lagu keenay. wixii oo dhan marka la arkay inay dadkii ayahooda ka tashanayaan oo dhibaatooyinka xalinayaan waxa wax la yaabaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aad ogtihiin shaqadiisu inay tahay difaaca qaranka Soomaaliyeed inuu isu bedelo qabqabla dagaal uu ka badan waayo inuu isku diro beelo Soomaaliyeed oo nabad ku nool. arrintaasi uma aysan suuro gelin beel iskuma dirin laakiin wuxuu isku diray ciidamadii Jubbaland oo dhibaato u geystay oo calaaluush iyo dhibaatooyin wax beel oo shuqul ku leh malaha. dagaalkaas waxaa ka dambeeyay oo sabab ah ninka la yiraahdo muxuu ahaa magaciisa wasiirkii gaashaandhigga ninkii sheeganay. anigu wasiir gaashaandhig ma dhaha karay laakiin ninka sheeganaya ninkaas un baa ka dambeeyay waxa Kismaayo ka dhacay. beeshana wax shuqul oo ay ku leedahay ma leheen. hadda beesha Coomare wax shuqul oo ay ku leedahay arrinkaas ma uusan jirin. Maxamed Cabdi Caynte TV-ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo.